saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin kooban oo taabanaysa xaladihii ugu dambeeyey ee dalka Talyaaniga oo noqday dalkii ugu dhimashada badnaa ee cudurka coronavirus oo si weyn u saameeyay. cabsi fara badan ayaa laga dareemayaa Talyaaniga xilli isbitaalaadka ay ku sugan yihiin dad bukaana oo ku dhacay caabuqa coronavirus. waxyaabaha laga soo sheegayo ay wajahayaan bukaanada xanuunkan ay soo riteen. bukaanada marka ay imaanayaan ay leeyihiin nidaam gooni ah, dhakhtar walba lama kulmi karo. waxaana arkayaa dhakhtar loogu talagalay laguma dhaweynayo bukaanada kale ee caadiga. waxa isbitaalaadka Talyaanigu sameeyeen qayb gooni ah oo xiran dadka qaba coronavirus. dadka qaar ayaa iyagoo dhimanaya la iska dhaafaya, dadkaasoo laga doorbidayo in kuwa kale oo cudurku markaasi uu haleelay lala tacaalo. qaar ka mid a bukaanada ayaa sheegay in iyagoo sakaraad ah laga dultegayo, iyagoo laga doorbidayo in bukaan kale oo markaasi cudurku soo hayo lala tacaalo. cudurka coronavirus oo ah mid si dhaqso leh ku faafaya, dadku waxay isbitaalaadka Talyaaniga u tagayaan daqiiqad iyagoo markaasi jecel in ay la tacaalaan ama ay iska daweeyaan cudurka coronavirus. Talyaaniga ayaa wadanka labaad ee ugu saameynta badan ee uu ku yeeshay cudurka coronavirus marka laga soo tago Shiinaha. ilaa hadda 27,980 kiis ayaa la xaqiijiyay gudaha Talyaaniga, tiradaas oo marba marka ka dambeysa si xawli ah u sii kordhaysa. dhakhtar ku sugan Talyaaniga ayaa sheegay haddii qof ay da'diisu u dhaxayso 80 ilaa 95 sano jir neeftu ku dhagan tahay, uma badna inaan u dhaqaaqno sidii aan u daweyn lahayn, ayuu yiri Dr. Cristiano Salorila oo ka qaybta bukaanada halista ah loo gudbiyo isbitaalka magaalada Bergamo ee Talyaaniga. dhakhaatiirta Talyaaniga ayaa inta ay badbaadinayaan waxa ay ka badan tahay inta ku hor dhimanaysa. waxyaabaha dareenkaaga gilgilaya waxaa ka mid ah in dadweynuhu dhammaan hilo qaran muujiyeen. dhakhaatiirtii howlgabka ahayd ayaa dib u soo kacday iyaga oo difaacaya dalkooda iyo dadkooda.